السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الضوء يا كسر دوادا برنامج كترتنا أقوانات كبيش رمضان نقطة قلنا إن كي قد قاتنا لنت الصومالية يكون السوق دمان دافع الدونكا. برنامج كمان تا قيبتي سا وحنكون جد جري دورنا جروب كدي قيبتي سووه الرئيسي. برنامج كمان تا حين يقاب جلاية عاشق عثمان أو جوتا مقالة كمبالا وضع في يوغندا. عبد الرحمن عثمان أو جوجا عاصمة وضع الصومالية مقدشو. haddii aan ku bilaabo barnaamijka aan soo dhaweey marka ugu horeysa cabdiqaadir waaran kusoo dhawo barnaamijka ustaad aad u mahadsan tahay waana filayaa tartanka inuu noqdo mid aad u xiiso badan isla markaa labada tartamayaalna ay ka faa'iideystaan aqoon isdhaafsadaan aan weydiiyo isla markaana aan soo dhaweeyo cabdiqaadir koronto inuu laba lambar noo kala siiyo tartamayaasha isla markaana kelmadiisa u dhaho waa tahay waxaan jecelnahay inaan labada tartame aan siino lambar 60 iyo lambar 90 waxaad kala qabsataan labada lambar ee kala ah lambar 60 iyo lambar 90 أنا قبصة عاش waxay qabsatay 60 lambarka soo haray 90 waxa iska leh Cabdiraxmaan cabdiqaadir yaa ku bilaabana عاشا ayuu ku bilaabanayna su'aalaha insha Allah su'aalaha waxaan ku bilaabaynaa qofka ugu horeeyay waa Caash oo joogta Kampala si fiican u dhageyso su'aasha ugu horeysa barnaamijka waxay leedahay sida tan sheeg imisa sano ayuu hayay khilaafada islaamka Umar bin Khattab waxaad haystaa hal daqiiqo waqtiga ka faa'iideyso marhaba ya ramadan marhaba هلو عاشا ألو جوابته بسم الله هذا كده سؤال جوابتي له لواتني سديت سنة سؤاشاس جوابتي هذه صحتها هاي أن كوريجية كودية برنامجك وطاي سؤاشاسي oo weydiiyay caasho jawaabta ay ka bixisay ma ahan mid sax ah haddii uu ka faa'iideysanayo Cabdiraxmaan بسم الله سؤال جابت المسكتة وحنا نقولنا شاء لواتني سدحته isla jawaabtaas hadday sax tahay ama rabaad gudiga ku celiyo waa tahay isla jawaabta uu ka bixiyay su'aashii soo hareer martay caasho isla markaana si ka faa'iideysi ah hortimid Cabdiraxmaan jawaabta uu ka bixiyay waa mid aan sax ahayn haddii ay labada daawadaba ama tartamayaal ay soo hareer martay jawaabta saxda ah bal gudiga aan ku celiyo jawaabta saxda ah barnaamijka inay nooga faa'iideeyaan waa tahay su'aashii ugu horeysay ee la weydiiyay Caaisha waxay ahayd su'aal diini ah waxayna u dhacaysay sida tan sheeg imisa sano ayuu khilaafada hayay Umar bin Khattab jawaabta saxda ah waa 10 sano sida uu gaar insha Allah waxaan filayaa dhammaan daawadayaasha iyo tartamayaashaba inay jawaabtaas ka faa'iideysteen ayna meel ku qorteen su'aasha labaad ee barnaamijka waxaa iska leh Cabdiraxmaan Cusmaan oo ku sugan magaalada caasimadda ee waddankeena Muqdisho سؤال waxay leedahay sida tan sheeg imisa sano ayuu khilaafada islaamka hayay Uthman ibn Affan waxaad haysataa muddo hal daqiiqo ah ka faa'iideyso waqtigaaga مرحبا يا رمضان مرحبا Cabdiraxmaan jawaabta هلو عبد الرحمن بسم الله سؤال جابت هذا المسكتة وحنا نقولنا سديت سنة 8 sano jawaabta haddii ay sax tahay gudiga waa tahay su'aashii koowaad ee isna la weydiiyay Cabdiraxmaan jawaabta uu ka bixiyay waa mid aan sax ahayn haddaba haddii ay ka faa'iideysanayso Caasho ka faa'iideysuguna waqti ma laha هلو عاش ألو هلو عاش جوابته كفايدة وقت ملها بعد أسكت ضايع وحوها سديت سنة 8 sano bal isla markaana gudigan ku celiyo jawaabtaas inay sax tahay iyo inay qalad tahay waa tahay isla jawaabta ay ka bixisay Caaisho su'aashii Cabdiraxmaan soo hareer martay waa iyana waa mid aan sax ahayn su'aalaha waxaad moodaa ugu horreey barnaamijka in aad loogu bariiqday Cabdiqaadir jawaabta saxda jawaabta saxda su'aasha la weydiiyay Cabdiraxmaan waxay ahayd isla markaana soo hareer martay si ka faa'iideysayna markii kale Caaisho
loo aadiyey balse labaduba ay garan waayeen waxay u dhacaysay sida tan sheeg imise sano ayuu khilaafada islaamka hayay cuthmaan bin cafaan jawaabta saxdaana waa 12 sano waxaan filayaa tartamayaal inaad jawaabtaas aad ka faa'iidaysateen aadna meel ku qorateen si aydan mar kale u gafin su-aasha kale ee barnaamijka waxaa iska leh caasho waana su-aasha labaad ee iska leedahay barnaamijkan su-aashan waa su-aal macluumaad guud waxay leedahay sida tan waxaad sheegtaa ninka aasaasay shirkadda loo yaqaano Amazon waxaad haysataa muddo 60 sakiin ah ka faa'iidaysi waana مرحبا يا رمضان مرحبا هلا عاش جواب jawaabtaada isku dayo shirkadda Amazon waxa aasay Michael Walk Silent Michael Walk Silent jawaabtaas haddii ay sax tahay aan u gudbiyo guddiga barnaamijka waa tahay jawaabta caasho ay ka bixisay su-aashaasi la weydiiyey sax ma haddii ay su-aashaasi soo hareer martay caasho waxaan isla markaas si ka faa'iidaysiya u siinaynaa Cabdiraxmaan inuu ka faa'iidaysto aniga dhankeyga ma hayo su-aasha haddii dhammaan tartamayaasha ay haleeli waayeen bal mar labaad guddigaan ku celiyay inay uga faa'iideeyaan dadweynaha waa tahay su-aasha caasho la weydiiyay saatay soo hareer martay si ka faa'iidaysayna Cabdiraxmaan oo gacanta uga taagay waxay u dhacaysay sida tan sheeg ninkii aasaasay shirkadda Amazon jawaabta saxdaana waa Jeff Bezos waa sax jawaabtaasi ninka aasaasay shirkadda caanka ee online marketing ee Amazon loo yaqaano waxaa aasaasay Jeff Bezos su-aasha kale ee barnaamijka waxaa iska leh Cabdiraxmaan waxay u dhacaysaa sida tan sheeg ninka aasaasay shirkadda Facebook waxaad haysataa 60 sakiin waxaan ka sugnaa waa jawaabta مرحبا يا رمضان مرحبا هلا Cabdiraxmaan jawaabteeda isku noqonaysaa Max Zuckerberg jawaabta saxda ah marka lagu celi Max Zuckerberg waxaan jeclahay Cabdiraxmaan inaad jawaab fasiixa aad siiso oo dhammaan daawadayaasha iyo guddiguba ay fahmi karaan si aan u qiimeeyno in jawaabtaada sax tahay iyo in kale waxaan noqonaysaa Max Zuckerberg ma hubo su-aashaas inay guddiga ay fahmeen iyo in kale laakiin bal aan u gudbiyo wixii ay ka fahmeen si fiican uma cadda dhawaaqaaga hal mar ku celi bas Max Zuckerberg waa tahay jawaabta uu ka bixiyey ma ahan mid sax ah bal isla su-aashaas haddii aan u gudbiyo si ka faa'iidaysiya caasho haddii ay ka faa'iidaysanayso Mark Girsborn jawaabtaas bal mar labaad guddiga aan ku celiyo in haleeleen iyo in kale waa tahay iyana jawaabta ay ka bixisay ma ahan mid sax ah okay haddii aan u gudbo barnaamijka su-aasha xigta waxaad moodaa barnaamijka maanta aad inuu dhaqaaqi leeyahay bal laakiin intaa ka hor bal su-aashan hadda bal guddiga aan ku wareejiyo si ay nooga faa'iideeyaan jawaabta saxda ah si ay uga faa'iideystaan tartamayaasha iyo dhammaan daawadayaashaba waa tahay intaanan jawaabta u gudagelin tartamayaasha waxaan ka codsanaynaa in muxuu ahaa wuxuu aysan cabir noqon dhawaaqa rasmiga ay ku dhawaaqaan si annaga iyo dadweynayaasha daawadayaashaba aynu u wada fahno jawaabta saxda ah sheeg ninkii aasaasay shirkadda caanka ee Facebooka magaciisa saxda ah waa Mark Zuckerberg ayay noqonaysaa ninka aasaasay shirkadda caanka ee Facebook maalin walba aynu isticmaalno ninka iska leh waa Mark Zuckerberg jawaabta saxda waxaan filayaa meel lagu qortay su-aasha xigta waxaa iska leh caasho su-aashana waxay u dhacday sidatan sheeg ciyaartooyga ugu da-da weynaa ee ka qayb gala kaabka Afrika
waxaad haysataa muddo 60 sakina ka faa'iidaysi waxa مرحبا يا رمضان مرحبا هلو عاشا جوابته هذا اسكت سؤال جوابتي بسم الله سمولي إيتو samuel eto ciyaaryahaankii weynaa ee Barcelona jawaabta inay sax tahay iyo in kale waa tahay su-aashaasi la weydiiyey caaisha jawaabta ay ka bixisay ma ahan mid sax ah okay haddii uu ka faa'iideysanayo Cabdiraxmaan su-aashaas jawaabteeda su-aasha jawaabteeda dan waxay noqon doontaa maxamed maxamed Abu Tarika ciyaartooyga weynaa ee reer Egypt jawaabta inay sax tahay iyo in kale aan sii mar labaad Cabdiqaadir Koronto isna jawaabta uu ka bixiyay ma ahan mid sax ah bal haddaba haddii laba tartamayaal ay soo dhinac hareer martay jawaabta saxda ah mar kale guddiga aan siiyo bal inay naga faa'iideeyaan su-aashu waxay u dhacaysay sida tan sheeg ciyaartooygii ugu daada weynaa ee African Cup-ka safta amaba ka dheela waxa uu ahaa Cisaam Al-Hadri waxaan filayaa jawaabta in daawadayaasha dhammaan ay ka faa'iideysteen ciyaartooyga ugu daada weynaa ee Afrika safta wuxuu ahaa Cisaam Al-Hadri goolhayihii hore ee wadankaasi Masar su-aasha kale ee barnaamijka waxaa iska leh isla Cabdiraxmaan su-aashu waxay leedahay sheeg ciyaartooygii ugu da'da yaraa ee ku guuleysta World Cup-ka ama waxa loo yaqaano koobka adduunka ee qaaradaha adduunka ay saftaan waxaad haysataa 60 sakin waxaan sugnaa waa jawaabta مرحبا يا رمضان مرحبا هلا Cabdiraxmaan ma maqlaysaa هلا Cabdiraxmaan بسم الله su-aasha jawaabteeda dan waxay noqon doontaa Kylian Mbappe ciyaartooyga reer Faransa jawaabtaas inay sax tahay iyo in kale guddigan siiyo waa tahay maanta waxaad moodaa in Caashi Cusmaan ay aad isku bareejeynayaan oo aysan kala dhicin labaduba jawaabtu isna ka bixiyay ma ahan mid sax ah dhufaysa la isugu jira meesha saan arkayo haddii aad ka faa'iideysanayso Caasho su-aasha barnaamijka hadda Messi Lionel Messi jawaabta inay sax tahay in kale guddigan ku celiyo waa tahay jawaabta iyana ay ka bixisay waa mid aan sax ahayn haddii labada tartamo ay soo hareer martay jawaabta saxda ah bal aan siiyo guddiga inay nooga faa'iideeyaan jawaabta saxda ah ee su-aashaas Cabdiqaadir waa tahay su-aashu waxay u dhacaysay sida tan sheeg ciyaartooyga ugu daada yaraa ee ku guuleysta World Cup amaba koobka adduunka waxa uu ahaa ciyaaryahankii Pele ciyaartooyga weynaa ee reer Brazil ayaa waxa uu ahaa ciyaartooyga ugu daada yaraa ee ku guuleysta koobka adduunka su-aasha kale xigta barnaamijka waxay leedahay sida tan sheeg sanadkii la aasaasay urur goboleedka IGAD waana labadii su-aal ee ugu dambeysay min afartii su-aal ee tartamayaasha مرحبا يا رمضان مرحبا هلا وعاش هلا وعاش جوابتك سؤال جوابتي هذا اسكت جنوري 1986 1986 jawaabta sax iyo khalad mid ay tahay guddigaasiyo waa tahay Caashi Cusmaan su-aashii la weydiiyey ee u dhacaysay sheeg sanadkii la aasaasay urur goboleedka IGAD jawaabta ay ka bixisay waa mid sax ah waana 1986 haddaba jawaabtaas haddii ay haleeshay Caasho su-aasha ugu dambeysay barnaamijka waxaa iska leh Cabdiraxmaan waxayna u dhacaysaa sida tan sheeg sanadkii la aasaasay midowga jaamacadda Carabta waxaan sugnaaba waa jawaabta مرحبا يا رمضان مرحبا
هلا وعد الرحمن بسم الله سؤال جابتي waxay noqon doontaa 1945 1945 bal guddiga aan siiyo jawaabtaas inay sax tahay iyo in kale waa tahay su-aashaasi la weydiiyey cabdiraxmaan oo u dhaceysa sheeg sanadkii la asaasay midooda jaamacadda carabta jawaabta uu ka bixiyey waa mid sax ah waana 1945 xilligii cabdiqaadir kuwarar uu dhashay barnaamijka qeybtiisa u horeysay min 4 su-aalood ayaan siinay laba tartame bal natiijada barnaamijka aynu weydiino cabdiqaadir kuwaral oo guddiga inoo ahaa bal inuu jawaabta saxda ah inuu na siiyo natiijada saxda ah ee barnaamijka inaynu haysano barbardhac iyo in kale waagaag tartankani waxa uu dhex maray caasho cusmaan cumar oo ku sugan magaalada kambaale ee dalka uganda iyo sidoo kale cabdiraxmaan cusmaan cali oo magaalada muqdisho caasimada soomaaliya jooga waxaa la weydiiyey min 4 su-aalood waxaana su-aalaha kormartay caasha 3 kamid a caasho waa ay garan weysay halka ay mid kamid a su-aalaheedana ay ka guuleysatay halkaasna waxay kusoo hoysay 2 dhibcood oo waaweyn sidoo kale cabdiraxmaan ayaa isna la hordhigay ilaa iyo 4 su-aal 3 kamid a ayuu beerdareeyey hal su-aalna waa uu ka jawaabay waxa uu isna soo hooyay 2 dhibcood sidaa ayay ciyaarta waxay ku tahay barbardhac oo qof walba waxa uu haystaa min 2 dhibcood ustaadka hore u sheego wuxuu dhahay labadooduba isku gabanayaan gadaal dambe aad iyo aad marka waxay noqonaysaa in guddiga uu su-aalo kale oo dheeriya si ay u kala baxaan tartanka sida xeerka ahayd ay keenaan ay macluum daawadayaal waxaan usoo gudubnay qeybtii kale ee barnaamijka maadaama ay laba tartamo kala bixi waayeen oo min 4 su-aalo la siiyey ay ka heleen min 2 dhibcood taasoo noqotay inay barbardhac kusoo baxaan isla wareega hadda ay ciyaarayaan si aynu u kala saarno barnaamijka labada tartame waxaan usoo qorsheynay min hal su-aal oo dheeraad ah min halkaas su-aal haddii ay ka jawaabaan waxay noqon doontaa inay su-aalo kale usii raadino haddii ay ku kala baxaanna sidaas ayuu wareega inoogu dhammaan doonaa barnaamijka marka hore waxaanu ku bilownay caasha oo markii hore qabsatay lambarka koobaad isla ayadaynu ku bilaabeynaa su-aalaha dheeraadka ee barnaamijka waxay u dhacayaan sida tan su-aasha ugu horeysan waxaa iskale caasha cusmaan oo joogta Kampala dhagaa si fiican u fur waxay leedahay su-aashan waxaad sheegtaa magaca loo yaqaano faraska dhadiga waxaan sugnaa waa jawaabta waxaad haysataa 6 sekoond مرحبا يا رمضان مرحبا halo caasho halo jawaabta Kenya jawaabta waxay ku tilmaamtay Genyo sax iyo qalad waxay tahay guddiga aan weydiiyo waa tahay su-aasha caasho la weydiiyey waxay ahayd waxaad sheegtaa magaca loo yaqaano faraska dhadiga waxaana ay sheegtay inay tahay Genyo haddaba jawaabtaasi waa midda saxda ah su-aasha kale ee barnaamijka ee maaragtay qaybtiisa dheeraadka waxaa iskale cabdiraxmaan waxaynu dhacaysaa sida tan waxaad sheegtaa magaca loo yaqaano idaha dhadiga ah ee yaryar مرحبا يا رمضان مرحبا halo cabdiraxmaan بسم الله سؤال جابتي waxay noqon doontaa ceesaan ceesaan jawaabta sax iyo khalad waxay tahay guddiga aan u gudbiyo waa gartay jawaabta uu ka bixiyey ma ahan mid sax ah haddaba caasho haddii ay ka faa'iideysanayso su-aashaas soo hareen martay cabdiraxmaan nail sax iyo khalad waxay tahay guddiga aan siiyo waa tahay su-aasha la weydiiyey cabdiraxmaan isla markaana soo hareer marto si ka faa'iideysa hortiila caaisha waxay u dhaceysay waxaad sheegtaa magaca loo yaqaano idaha dhadiga ee yar jawaabta ay ka bixisay waa mid sax ah waana nail daawadayaal barnaamijka qaybtiisa labaad oo aynu siinay min hal su-aal aan kala siinay tartamayaasha si ay u kala baxaan maadaama ay isku dheganaayeen barnaamijka qaybtiisa hore ayaa waxaan jawaab natiijadeeda aynu ka sugaynaa waa cabdiqaadir kuwaaral
waayahay tartanka waxa uu dhex maray cabdiraxmaan cusmaan oo jooga magaalada muqdisho waxaa la weydiiyey qaybta hore 4 su-aalood waxa uu ka jawaabay mid ka mid ah sidaa oo kale hal su-aal oo dheedheeri ayaa loogu daray maadaama barbarac ay ku dhamaatay qaybtii hore waa uu beerdareeyey marka sidaa daraaddeed 2 dhibcood ayuu cabdiraxmaan tartanka kasoo hooyey caasho oo iyana sidaa oo kale la hordhigay qaybta hore 4 su-aal oo mid kamid ka jawaabtay sidoo kalena su-aalihii dheeriga ayaa la weydiiyey waa ay ka jawaabtay waxayna ku darsatay halka faa'iidaysi oo cabdiraxmaan soo hareer martay sidaa daraaddeed waxa ay soo hoysay 2 dhibcood oo wareegii hore ahaa iyo 3 dhibcood kii dambe ahaa markii la isu geeyo 5 dhibcood ayay kusoo baxday wareegan sidaana waxa kusoo baxay casho waa tahay daawadayaal maadaama barnaamijkan qaybtiisa ugu dambeeya aan soo gabagabeynay qaybtan waxaa kusoo baxday caasho waxaan kala siinayaa min 20 second si ay dareenkooda noogu soo gudbiyaan cabdiraxmaan iyo caasho cabdiraxmaan aan ku horeeya cabdiraxmaan see wartaa natiijada halo cabdiraxmaan natiijada la og maqlaa ha natiijada barnaamij see wartaa adoo soo koobay natiijada waa aska gar loo qusay marka waxa walaasheeda ayada ku sharaacday ambaliya le ambaliya cabdiraxmaan aad u baasantahay wuxuu yiri gar 2 nin kama wada qosliso kulley ma gabadhay ka qoslisaa ma aqaano caasho see wartaa barnaamijka adiga dareenkaaga adoo noo soo koobaya بسم الله مركو برنتين في ساور كوي ماسين ذلك عبد الرحمن وماسين ما شاء الله ودي ذلك وحاول نصيبك إيه اللي معانا ما شاء الله وفرح سنة caasho adina aad u mahadsan tahay cabdiraxmaan iyo caasho labadiina aad mahadsan tihiin gul iyo maaragtay iyo gobonimo ayaan labadiinaba idin rajeynayaa tan iyo kulanti dambe labadiina waa idin salaamayaa aan kusoo dhaweeyo ugu dambeyntii guddiga barnaamijka cabdiqaadir koronto 1 iyo 2 waa tahay runtii waxaad moodaa qaybihii hore oo dhan labadaba inay muxuu ahay sheegnoo wada gabadeen laakiin markii dambe hawsha ay nagu dheereeyeen laakiin falilahi alxamdu ugu dambeyntii oo ay ku kala baxeen oo caasho ayaa sidaas ay ku raacday run ahaantii tartankan labada qofood inay guulaystaan iyo inay guuldareystaan muhiimadda maaha mar kale a idinkugu celiyo waa isdhexgal dhalinyaro iyo isbarasho iyo in dhalinyarada qofka jooga hadda muqdisho ayuu joogaa ayana waxay joogtaa waddanka Uganda marka in 2 qof oo wadamo kala duwan joogo tartanka waxa ka qayb galaya waddan walba adduunka Canada Mareykanka Germany France muxuu ay sheeg Turkiga wadamadaas ay u jeedaan isdhexgalka dhalinyarada ugu talagalnay runtiina waxa is dhigi karaa tartankii ugu horeeyay oo noocan oo kala ah oo dhalinyaro loo qabtay inuu noqonayo tartankan hadduusan ahayna commentiga ayaad noogu sheegi doontiin marka waxaan jeclahay ustaadka inuu noo soo xiro daawadayaal dhammaantiin aad mahadsantihiin tartamayaasha barnaamijka ka qayb galay barnaamijka maanta halkaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa waxaan leen tan iyo kulanti dambe waa aniga waa maxamed axmed nuur iyo laba cabdiqaadir dhammaantiin waxaan ku salaamaynaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu iyo ramadaan kariim